shirkadda socdaalka ee Subar oo ah shirkad cusub oo nidaam casri ah ku soo kordhisay adeegyada socdaalka iyo qaadista alaabooyinka oo isaga gooshaysa gobolada Somaliland iyo dalalka dariska ayaa maanta laga daahfuray caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaana munaasabadda daahfurka ka soo qayb galay maamulka sare ee shirkadda Subar agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland xildhibaano madax dhaqameed iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu soo casuumay ugu horeyn waxa munaasabadda hadalka jeediyay maariyaha guud ee shirkadda socdaalka ee Subar Maxamuud Ciise Jaamac wuxuuna faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay shirkadani bulshada u qaban doonto waynu ognahay shirkado badan oo hore ka jiray maxay kaga duwan tahay shirkadii jiray shirkadani waa shirkad adeegeedu yahay online oo ku shaqeyn doonta app marka qofku isagoo gurigiisa jooga ayaa wuxuu buukan garaysan doonaa tigirka uu ka baxayo waxa uu soo bixi doona baska taagan halka uu doonayo uu tagayo waxa uu buukan garaysan karaa alaabta uu doonayo in laga soo qaado waxa aan dheerahay inaan sameeyno collection alaabta oo kaga soo qaadayno qofka halku joogo waxa kale oo qabanaynaa in sida masaafadaha dhaadheer wala aan bilaabin imika waxay ku kooban tahay gobolada Somaliland oo dhan waxaan siinaynaa ofuro ay ka mid tahay qofka galowga ka soo qaata gaariga Subar inaanu taxiga uu guriga ku tagayo aanu qabi doono bixin doono waxa kale oo sameyn doonaa waxaan leenahay qayb logistico gaar oo baabuur gaar oo u diyaarsan inay delivery garayso alaabaadka khaaska ah sida shirkadaha waxa kale oo dhankooda munaasabadda hadalka jeediyay isku xidhaha gaadiidka shirkaddan ee gobolada bari ee Somaliland iyo wadamada dariska agaasimaha waaxda gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland xildhibaan hore Cabdullaahi Balaaki Dr. Cabdi Fataax Ibrahim iyo sidoo kale Mujaahid Aadan Ruush waxaanay dhammaantood ka warameen muhiimadda ay shirkaddan u leedahay dalka Somaliland iyagoona amaanay adeegyada cusub ee shirkaddani soo kordhisay shirkadda shaqaalaha dhammaantood tababar baa la geliyay hadday tahay darawaliinta iyo hadday tahay shaqaalaha xafiisyadaba oo waxa weeye waxay u diyaarsan yihiin inay maamulaan inay waqtiga maareeyaan agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Abdeeq ayaa waxa uu shirkadda cusub ee Subar ku tilmaamay shaqada ay qaban doonto mid loo baahnaa aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb galo halabuur kan fiican kaga duwan shirkadihii hore casriga ah ee online ka ah wadogtiino maalin baad waxa la keenayaa fikir cusub tartanka ganacsiguna wuxuu abuurayaa inuu customers dadweynaha Somaliland u fududeeyo waxyaabo badan waynu ognahay oo dalka waxa ka jiray shirkado hore oo transportation ah laakiin Subar transportation sidoo maarayaha inoo sharaxay waxa kaliya ay kaga duwan tahay waxa weeye adigoo sariirtaada iska jooga adigoo jam soo gelin adigoo waqti ka warwareyn oo ka dhaco adigoo ka warwareyn inuu kursigu ka buuxsano inaad maxay hayday mobilkaaga aad ka dooranayso dee runtii waxaad ka arkaysaa halkaa in dalkeenu maanta dee halku marayo teknolojiyadda iyo horumarka ganacsiga halku gaadhay